السلام عليكم دمان صاحبيدا qiimaha badan walaalaha qalbiga wanaagsan soo dhawaada in Allah yahay waqti walba ay ku tawacano wanaagsan fiidiyoga markuu soo gaaro waxa waajibka saaray in ay iga like gareyso channelka subscribe aad markuu ugu yareyso timaada duuyo soo dhawaaw aniga 8 saac bar ayaan seexdo waxaan soo kacay 12 saac bar Liverpool oo 2 gool iyo 2 gool West Ham la gashay ayaan soo kacay ciyaarta Manchester United iyo socoto hadda muuqaalka inii soo duubaya saaxiibayaal waxa idinka dalbanaa muuqaalka in ay iga like gareysaan aad baa u mahadsantiin mar labaad mar saddexaad soo dhawaada live aniga walaashin mar waxani in the building yaa maxaa maqli jiray cimrigaaga oo dhamaaday ceeb ma lagu sagootiyo Jordan Klopp waa buuxsaayay Liverpool maxaa u fadeexaysanay adaa dhiiqa ku dhex jirtay maxaa u fadeexaysanay ma tartiibta walaalo macna iskaaga baxday adigoo strikerka ama gool dhaliyahaaga macnaa striker maan Maxamed Saalax ee macnaa xidig gool dhalinta macnaa u tartamay keeda gelisay formka ku xumaa waa iska gali kartaa laakiin si barbarada Liverpool ay gashay waxa ka weyn baraha bulshada iyo dhammaan dadka sportska ka hadla majaladaha ugu waaweyn waxay falanqeynayaan dagaalkii gacan qaadkii macnaa xanaaqi frustrationka Maxamed Saalax iyo Jordan Klopp ka dhaxdhacay midaada kale hadaa taageero Man City hadaa taageero Arsenal hambaliya ku leeyahay mid labaad oo ku leeyahay waxa tahay laba qof oo Liverpool fans oo iscaynayana daaragtid wareerka waqtiga keenay hanugula qaato frustration aan nahay anaka isku fuuq baxeen hadaara Liverpool ahna Maxamed Saalax 81 daqiiqo ciyaarta la soo galiyay Jordan Klopp oo dhaqaaqay dhagto wax ugu sheegay dhammaan dadka afka iyo macnaa dad waxa jiro dhagoolayaasha wax u turjumo moogtahay dad waxa jiro macnaha reaction ka maal la qofka dhaqdhaqaaqiisa fiiriyo waxa leeyahay Jordan Klopp uu caayay Maxamed Saalax asna afka u furtay warnaaga taxi jeedada wase ka dhacdo meesha Darwin Núñez iyo badal lagu soo gelinaya ayaa kala qabteen oo kala dhax galeen macallinkii iyo Maxamed Saalax waxa maqli jiray dulmi madoog maayo waa soo daahira dulmi madoog maayo waa soo daahira حقي سيديو ماني أما بكلب كسو بحو يا إيرتا بيكو سيديو ماني إيه محمد صالح مد دورة مركز الله جوردن كلب بحو يري إما صوغ سيديو ماني إما صوغ لا يري وحان خاضنا يا محمد صالح يري توبرها ليفربول موقتين marka maantana waxa lagu leeyahay marka Liverpool dressing room keeda aad u qasan yahay ciyaarta markay dhamaatay kadib waa la wareystay Maxamed Saalax oo hadlay muxuu dhahay ma taqaanaa Maxamed Saalax wuxuu yiri waan aamusanahay inaan aamusnaado ayaa Iran hadii aan hadlo wuxuu yiri ceeb ayaa meesha ka dhacayso ceebtii adduunku aa meesha ka dhacayso taagan Maxamed Saalax inaan iska aamusnaado ayaa Iran dressing room ka Liverpool aad u kacsan yahay buuq iyo qayliisa waxana ka jirto macallin kale oo soo laabanaa adigoo macallin dan warta footballkan wax walba way ka dhacaan gool daran waa loo joogaa this is a football Allah laakiin ani waxa ka xumaa ma taqaana Liverpool title-ka ama kala sarreynta horyaalka ama u tartanka horyaalka Premier League Crystal Palace inay ka soo afjarto haddana ay ku qoosiso West Ham waxaan ka jeclaan lahaa Man City ama Arsenal ayadoo ku garaacdo oo macna koox weyn ay sharafta ay kaarido saas ka fiicnaa leed xanuunka West Ham guuldaradii Crystal Palace Anfield wax oo macnaha gurigeeda aan filmeeyeen wax loo dulqaado karo bataatan ma ahayn macna Jordan Klopp si oo macnaha aan fiicneen ay ku macsalaameynayaan afar koobka ay sheegeen halkaas jalmada ka soo haray jalmadaasna faa'iido ma lahan kooxdii qaado halkaas koob waxba kuma darto hal xabo koobka ayay ku baxdaa halkaas xabo waxba ma lagu daro Manchester United qaado ciyaareedka hore halka xabo ay ku bixin waliba ay 7 sano ay sugayeen Liverpool Brombo ma fahamteen oo sanadkan seasonka hore laba koob qaadeen waa kaasa marka saaxiibada qiimaha badan you will never walk on line hal ciyaareedka dambe wixii noo soo baxay ayaan rajeyn doonaa top 4 ka hal ilaaliyo kaalinta saddexaad kaalinta afraad liifa saaran West Ham Aston Villa soo biri garaacanayso horyaalkan Man City iyo wuxuu u dhaxeeyaa kooxda kubadda cagta Arsenal labadaas mid ayaa qaadi doonto midii qaadana waa u hambaliyeyn doonaa anigana waxaan dhihi doonaa congratulations hambaliya dheenaan adiga la jeclaan lahayd horyaalka inay qaado Arsenal iyo Manchester City wixii fikirkaaga waana la wadaagi kartaa qaybta commentiga taas ugu soo gudbaa halkaas ugu soo tagaa midaada ka halkaas marka ugu soo gudbo labadan bari reer Liverpool xanaaqi haayay ana igu dul dhacooyin
hadday tiktok noqoto hadday facebook noqoto anaa dhar camal la ila qooyaa waa la imajijino waa la hurgufo waa la waro laba bina dhab iyo dhab ali u kala siinoya aan fahamteen waxa la marwooy yaana taageer ku dhaay maalintaana taageertay waana kana dubuuradan uu noqotay waraada ali frustration ha ugu ridinina reer Liverpool dad badan oo qalbi wanaagsan oo saaxiibo aan nahay ama dad igu xirnaa jiro oo Liverpool taageero macnaha comment ma u jawaabi karto qof weyn ah tahay oo hadana public figure qof uma jawaabi kartid waa ina ku qaadataa macnaha qof bilaadna uma jawaabi kartid marka dadka si soo dhaha waa u jawaabi karaa aniga laakiin sadana waxaan leeyahay waa laga fiican yahay qofkii kula hadlo inaa u jawaabto taas oo ugu gudbaaya because aniga idin lama joogin 2000 iyo labadii sano Man City dhibcaha idinka qaadaysay idin lama joogin Liverpool marka waxaan wax caadi dhaqan u leeyihiin waa ma fahamtay hadii Real dadka Liverpool taageer inay xanaaqaan ma aha because waxa way la qabsadeen waxa laga rabaa qof haduu xanaaqa inaan xanaaqo because anay hadii ugu cusubtahay no adika ma ahan because waa la qabsateen adika waxaan eedo marka anigana waxa rajeen doonaa inaan la qabsado Liverpool ma ka tagay say ugu tagaa Liverpool GB ma umlis waa koox weyn Man City baa ku laabanay mastuu Saudi Liverpool joogooya Man City respect waa teamkeeyo hore waaye ha igu dirinina ha ma fahmino marka waa ka saayna leeyahay gul daro aad tan waxa dhigi karnaa 3 points oo nagala qaatay inoogu dhiginta wax kale inoogu dhiganto oo ilaahay abuurtay ma jirto kalabow Sadio Mane xaqiisa ka soo baxay because Mane Liverpool wax kale kaga matin Soomooyin mushaarka loo ku gitay Sadio Mane mushaarka igu dar ku daray loo tagay Maxamed Saalaxna waxa loo kordhiyay 300 isbuuc qaada la haaf waliba saanin baash daashay waxa ila muuqataa Maxamed Saalax inuu baxaya Jordan Klopp inuu baxaya Liverpool cusub oo soo dhalo doonta midaasaan la qabsareena sheekada halkaas mareena mideeda kale Arsenal Man City sanad walba horyaalkana waxay ku qaadaa waxa way idin jiifanay xilli ciyaareedka habka hore 10ka game leh soo kacay Man City alla aqli badana adna waa daashay adna ayadana markaas ay neef heesaabo 5 kulan 6 kulan badan horyaalkana waa qaaday natiijada Man City horyaalku ku qaado waa taas asxaab qiimo badan waxaan leeyahay guul wacan wanaagsan oo rajayna bye videogan iga like gare qof bilaadna uma jawaabi kartid marka dadka si soo dhaha waa u jawaabi karaa aniga laakiin sadana waxaan leeyahay waa laga fiican yahay qofkii kula hadlo inaa u jawaabto taas oo ugu gudbaaya because aniga idin lama joogin 2000 iyo labadii sano Man City dhibcaha idinka qaadaysay idin lama joogin Liverpool marka waxaan wax caadi dhaqan u leeyihiin waa ma fahamtay hadii Real dadka Liverpool taageer inay xanaaqaan ma aha because waxa way la qabsadeen waxa laga rabaa qof haduu xanaaqa inaan xanaaqo because anay hadii ugu cusubtahay no adika ma ahan because waa la qabsateen adinka waxaan eedo